dhegeystayaal waxaad nagala socotaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijkuna waa barnaamijkeeni hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay gaar ahaan qodobka dooda galabta waxaan ku faaqidi doonaa waxaa maalinimada beri ah ama hal kulan uu ka harsan yahay wareegga koowaad ee horyaalka heerka koowaad ee dalkeena gaar ahaan horyaalka 37 ee 2012 tamacsis ayaa rajeynaa xabiib soo saamaan si fiican ana dosh hagaag kusoo dhawa xabiib barnaamijka baraarujinta dhalinyarada gaar ahaan galabta malaha haddii dadka ay maqlaan waxay isleeyihiin barnaamijka ciyaaraha maali gaare aalan doosh aad baad umaadsantaha adii farsamayaqaan cabaas xaaji dhammaan dhegeystayaasha ku xiran barnaamijkan barbaarta dhabtii waa barnaamijka baraarujinta dhalinyarada cafwan waa barnaamij aad u qurux badan sidaad u tabinaysan waan kaaga madcelinaya saaxiib waa mahadsan tahay xabiib koley dabcan ciyaara markay noqoto anaga dee kaaga magada hadli karno waxaa tahay weriyaha isboortiga ee telefishinka raadiyaha horyaalka yaa hogaaminayo sidee loo kala horeeya intaan aan dhalinyarada iyo anaga aan falanqeyn horta horyaalka ka waran sanadkan cabdirasaaq aadan james aalan doosh waxaan filayaa in dadka aadan dhasar caadin sababtoo adigu waxaa tahay nin khubaro dhanka ciyaaraha ah dhabtii horyaalkan waa mid aad u xiiso badan wuxuuna soo bilaabaday 4tii bishii aynu kasoo gudubnay ee juun ee sanadkan 2012 horyaalkan sida tv-ga qarankaba aan usoo tabinay idaacadda qarankaba waa mid aad u xiiso badan 8 kooxood oo kooxaha darajada koowaad ayaana aalan dooshow ciyaaraya horyaalkan sanadkan waa lisardinaya oo aad ayaa loogu dagaalamayaa waxaana haatan muuqatay in wareegiisa koowaad hal kulan oo qura uu ka harsan yahay kulankaasi oo taariikhda beri ay ku beegan tahay 17 bishan Juulaay labada kooxood ee dekada iyo kooxda kubadda cagta horseed horyaalkan ay soo qatimayaan maadaama dhawaan la galayo bisha barakeysan ee Ramadaan aalan dooshow waa mahadsan tahay kala horeynta horyaalka waan gali doonaa laakiin goordhow waxaa soo gabagabowday ciyaar adag oo ka tirsan horyaalka waxaana wada ciyaaraya kooxaha Banaadir Sports Club iyo Genyo LLBB ciyaarta maxay kusoo gabagabowday horta haddii aan u sheegno dhalinyarada aalan dooshow ciyaartaasi dad badan ayaa filayay in labada kooxood ay kala adkaan karaan kooxda kubadda cagta LLBB Genyo kooxda lagu raaneyso ayaa raacday wadadii ay horyaalkan kusoo qatintay kooxda Elman oo iyada oo aan laga adkaan wareegga koowaad uu soo dhamaaday LLBB Genyo weli horyaalka lagama adkaan tan iyo markii uu soo bilaaday wareegiisa hore laakiin ciyaartii galabta ay la ciyaartay kooxda Banaadir Sports Club labada kooxood waxba way iska qaadi waayeen oo barbadhac min gool iyo gool ah ayay ku hesheen waxaana barbadhacaasi uu hoos u dhigayaa naadiga kubadda cagta ee Banaadir Sports Club oo galabta haddii ay guuleysan lahayd waxay ka dhignaan lahayd in kaalinta labaad ay gasho waxaana haatan kaalintaasi ka gashay kooxda kubadda cagta Higan Genyo waa kulanka labaad oo isku xigo markaas ee Barejo galaysan rajeynaa inta badan Genyo waxaa la oran karaabo Genyo Barejo sidoo kala hore barnaamijyada ciyaaraha dhageystayaashu ay u dhihi jireen kooxda kubadda cagta horseed Barejo hay kala horeynta yaa hogaaminaya horyaalka horyaalkan Elman ayaa 7 kulan oo horyaalkan wareegiisa koowaad ee kasoo qatintay waxay leedahay 17 dhibcood waxaana booska labaad si nadiif ah haatan oo aan shaki lahayn ugu jirta kooxda kubadda cagta Higan inkastoo kala hore dhanka dhibcaha ay wadaageen kooxda Banaadir laakiin Higan markii kooxda badbaado ay ka adkaatay ayay yeelatay 12 dhibcood kaalin saddexaad waxaa ku jirta kooxda Banaadir Sports Club oo 10 dhibcood ay leedahay kaalinta afraadna ee ku jirta kooxda kubadda cagta LLBB Genyo kaalinta shanaad waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo horseed halka kaalinta lixaadna ay ku jirta kooxda kubadda cagta ee dekada kaalinta labaad waxaa ku jirta kooxda Saxafi halka kaalinta ugu dambeysana ay tahay kooxda u muuqatay inay dib ugu hoobanayso heerka labaad ee badbaado waxay wadataa magac badbaado loogu magac daray laakiin waxaa u muuqatay in sanadkan aysan ka badbaadi doonin inay heerka labaad aalan dooshow u hoobato saan filayo dabcan xerada badbaada lagu xareyn doona malena dabcan saasaan filaa hagaag goolalinta ka waran sanadkan ciyaaryahaano waxaa leeyahay goolashii ugu fara badnaa ayaa sanadkan la dhalinaya kooxaha bal maxaa goolasha farqiga ciyaaryahanada udhexeeya ay goolasha ku hogaaminayaan aalan dooshow dhanka goolalinta ma oran karno goolalinta saas u badan ayaa la iska dhaliyay kooxda goolasha ugu badan laga dhaliyay waa kooxda kubadda cagta ee badbaado ciyaaryahanada dhanka goolalinta aad bay ugu dagaalamayaan laakiin horyaalkan waxaa xusud mudan in 11 kulan oo ka tirsan in barbadhac ay ku dhamaatay haatan dhanka goolalinta sidaad kala hore xustay waxaa isku haya ciyaaryahanka weeryahanka buuxa ee kooxda Elman iyo xulka qaranka Soomaaliyeed Maxamed Nuur Shaarkey ciyaaryahanka da'yar ee lambarka buuxa ee tobnaad u xirta kooxda kubadda cagta Higan Jibriil Xasan Fariid dhabtii waa laba xidig oo qaybta weerarka
aada ugu wanaagsan lamana haatan sadaalin karo cidda sida tooska loogu sheegi karo in horyaalkan dhanka gool-dhalinta ay ku guuleysan karto maadaama labada ciyaaryahanba ay muhiim ka yihiin labada kooxood ee Elman iyo kooxda kubadda cagta Hagen. laakiin waxaana la sugi doonaa wareega labaad oo la filayo in bartamaha bisha September ee sanadkan haddii eebaha awooda leh mar kale ay daha ka dhigaan xiriirka Soomaalida ee kubadda cagta Alan Doshow. xabiib waa mahadsan tahay. horyaalkan waxaa laleeyahay ciyaaryahanada waxay soo bandhigayaan kubadda aad u wanaagsan. haddii aan eegno ciyaaryahanada sanadkan ugu muuqda horyaalka ama ka dhex muuqda waxaa ka mid a ciyaaryahanada sidaas xustaba Jibriil Xasan Fariid oo kale oo lambarka 10aad u qaatay naadiga Hagen. sidoo kale Maxamed Nuur Cabdi Shaarkey kuma dheer oo asna Elman ah iyo ciyaaryahanka lambarka 14aad u qaatay naadiga Genyo ee lagu magacaabo Liidaanyo. sidoo kale lambarka 10aad ee ciyaartii ugu dambeysay dekadaha rigoorada ninkii ka cunayay Cabdi Gurey oo kaleeto iyo Meeman oo kale lambarka 7aad Xaaji Abdullaahi John oo kale Elman ka tirsan aboko ninka khatarta ah sidoo kale ciyaaryahanka kaliya ee badbaado ku jira waxa la dhihi karaa Khaliirow ciyaaryahanka lagu magacaabo si fiican. marka sanadkan ka waran ciyaaryahanka adiga aragti ahaantaada aad dhihi lahayd way ugu fiican ciyaaryahanada sanadkan horyaalka dheelay. horyaalka haatan ma soo dhammaan oo ma soo gabagaboobin laakiin wareegaysa koowaad waxaan filayaa aniga Xasan Fariid inkastoo inaga aynan dooqi karin haddana waxaan taasi u deenaynaa dhegeystayaasha haatan doonaya Alan Doshow in barnaamijka ka soo qayb galaan. waa mahadsantahay xabiib qaadka telefoonka iyadoo waqtigu aad inoogu yiri. halo magacaaga saaxiib? magacaygu waa Idris Cabduqaadir Maxamed haye waqti ma jiray saaxiib soo koob marjab xaafada Sheelra waayahay aragtidaada. saaxiib aan aragtidayda aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. aniga waxaan u saar lahay Hagen. haye ninka diisha yarka Hagen waa Jibriil Xasan Fariid ciyaaraanka diisha oo tin kasto Khaliiro ogsado dhoya Khaliiro yaa simida u sadaalsay Jibriil u baa saaxiibkay. waa mahadsantahay khadka xigaalo. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الرزاق آدم جيمس ألان دوش مقعيقو سدحان وتريبل أم مؤمن محمد مؤمن وحان كسوغنا دقمدا حمرين حافظة كوتكا. مؤمن سادال كبيحيو كلان كبيرين حمرة دور دقدها إيو هرسيد إيو عيريان كانديكا عيريان وناكسن واي وعندي لا محمد نور شاركي إيو ساعبكي يعني وحان رجينا قوشيني قايدون تكوحداس. ما سنتا خطك حقالو. هالو مقعيق saaxiibka aadan doosh adii farsamaqaanka barnaamijka dhammaan shaqaalaha idaacadda qaranka bulshada Soomaaliyeed wanaag jecel waxay idin leeyahay galab wanaagsan. waxaan wanaagsan aragtidaada. magacaygu ugu horeyn waa Diiriye Cabdi Maxamed Diiri Dayax waxaan ku suganahay degmada Xamar Jajab qaasatan Sheelare. hay aragtidaada. aragtidayda haddaan ka hadlo aniga wuxuu keenay faa'iido aad u badan bulshada isdhex gashay. run ahaantii waxaan isdhihi karaa horyaalkan waxaa ku guuleysan kara kooxda awoodda badan ee Elman FC. waa mahadsantahay khadka xiga. halo adiga ugu dambeeya aragtidaada. صعب وان كذا ما لأن أنا مدوش أبي ضمان مجتمع سماء بعد رفاقين السومالية قلب وانا تستعجره. ما يعجب ونكسر وانه. فكري عثمان محمد حافظ الجبت ودقنا دولة بقلة الجنقاء. أي محاكو درس أنتس. إنتاس وحن كدرة ساعات المالية كبر بعكس علمنا يريدوا بين كوفة في الأرض حاجة كوفة أنت نحن يريدوا ساعات وما سنتهاي صاحب زكريا يا أقدم ببرنامج كبرامج قلبتها أو نوصل بلا وشنتي يشتري 8 دقيقة برنامج كنتو سعودي. waxaa idiin soo jeedinaya anigu Cabdirasaaq Aadan Jeemis waxaa igala qayb galay qaybta dambe ee falanqaynta horyaalka oo maalimada bari ah markaasi lugta koowaad la soo qatimi doono wariyaha ama khabiirka isboortiga ee raadiyo telefishinka qaranka Xabiib Axmed Cali waxaan ii farsameynay saaxiibka Almuhandas Abbas Maxamed Faarax guud ahaanna intaa waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka baraarujinta laakiin waxaan idinkaga tegayaa qasaa'idkiina ammaanka iyo fanaankii reer Jabuuti Cumar Aadan Dugsiye iyo xertiisa يا خير خلق الله دائما بالله بالخير والنصر صلى عليك الله يا خير خلق الله دائما بالله بالخير والنصر دخر بيك لو كم مضيق عربي ودبناها دقريقا جعل يا طبالي كرا صلى عليك الله يا خير خلق الله دائما بالله بالخير والنصر صلى عليك الله يا خير خلق الله دائما بالله بالخير والنصر
حقيو التفافيه ظلمي ويقايو عربكيو دبناها دقريقا جعل يا دبالي كرا صلى